toddobaadkani barnaamijka danta dalalka dariska waxaan diradda ku saari doonaa sababaha markaasi uriya khilaafaadka iyo colaadaha ka dhasha isku qabsashada dhulalka iyo boosaska waa qodob aad iyo aad xasaasi u ah barnaamijkaasi ayaanu doonaynaa inaan cagta ku saarno dhammaan arrimaha khuseeya iyo sababaha keena in bulshadu ay ku kala go'do dhulalka iyo boosaska dhegta waraarici axadani soo socota goorshagtada kolkay soo dul istaagto labada duurnimo barnaamijkaasi ee ka dhagayso Dawa FM. kulan wacan dhegeyste ku soo dhawow barnaamijka toddobaadle ee danta dalalka dariska oo aan ku qaadaa dhigno arrimaha shacabka xuduudda wadaaga iyo danta bulshada dariska. Xalqada maanta waxaan diradda ku saaraynaa sababaha curiya khilaafaadka iyo colaadaha ka dhanka dhulalka iyo boosaska. Waa qodob aad iyo aad xasaasi u ah ahna muhiim in laga hadlo dabcan si loo soo afjaro misiba loo yareeyo colaadahani ka dhasha dhulalka. Dhulka misiba boosaska waa hanti qaali ah oo dahabi ah balse haddana nagu noqday isha qalqalka ee ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan. Mandheera iyo Beled Xaawo qayb ay ka yihiin dadka wajahaya oo la kulma dhibaatooyinka salka ku haya dhulalka. Colaadaha dhulalka iyo isku qabashada boosaska waa arrin mug weyn inta badanna ku suntan taariikh dheer oo isugu jira dhaqan, dhaqaale iyo sharci. Waan soo aragnay sida qaabka daran ee colaadaha u kala geeyaan bulshada, qoysaska iyo dad aad isugu dhow oo diris ahaa. Sababaha way badan yihiin, sabab walbana xaalkeeda ayay leedahay. Tusaale, sababta ugu weyn ee curisa colaadaha ka dhasha dhulalka iyo boosaska oo la isku qabsado waa saboolnimada. Dadka kolka ay nolosha ku adag tahay oo ay la daalaa-dhacayaan saboolnimada dabcan dhulka ayay isku dagaalayaan waayo waa hantida kaliya ay arkaan. Waxaa loo baahan yahay in shaqo abuur baaxad weyn la sameeyo oo fursad loo curiyo bulshada si loo soo gaabsho saboolnimada. Kolley barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobkan, balse marka hore aynu maqalno gundhiga xalqadeena. Dhulku waa hanti maguuraan ah oo aad ugu weyn bulsho walba oo caalamka. Waa hanti qofkii haysta oo aad ugu barwaaqaysan yahay. Hadda bulshadeena Mandheera waxaa mar walba caqabad nagu ah colaadaha ka dhasha boosaska la isku qabsado. Maxaa sababa? Sidee loogu bixi karaa? Colaadaha dhulka ee Mandheera iyo Beled Xaawo dib u dhiga mar walba ee saameeya bulshada waxaa sababa tartanka lahaanshaha boosaska oo uu qof walba leeyahay ana iska leh, cid walbana ay doonayso in dhulkaasi ay reebato. Sababaha way badan yihiin, xalkuna wuu jiraa oo waxaa hubaala in si sahlan lagu xallin karo. Madaxda iyo siyaasiyiinta haddii ay faraha kala baxaan oo saameynta qaybsiga ay gaabshaan, baxshaan sabarloogooyin isku duwaan oo ay mideeyaan bulshada dabcan waa qayb ka mid ah xalka ugu dhow ee maanta laga gaari karo colaadaha soo noqda ee salka ku haya boosaska la isku qabsado. Ila soco anigoo ah Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan, waxaana barnaamijka marti ugu ah Ibraahim Axmed oo ku magac dheer Gurey Bonja. Ibraahim Axmed Gurey, ku soo dhawow Gurey Bonja barnaamijkeena. Maxaa sababa colaadaha ka dhasha dhulalka iyo boosaska la isku qabsado? My brother Ibrahim Dawa FM kuma soo ku soo dhawow. Magacaygu waa Ibraahim Axmed ku magac dheer Gurey Bonja. Dhulka khilaafayaasha boosaska waxa keenay badi waxa la community barkale conflict jire, tribalism ka keena, boundaries ka keena, waxa la isku haysan karaa land community dhulka la isku wadan karaa, qabiila oo dhulka iska haysan karaan ayay waxa jire meel oo boundaries la oo dadka kala haystaan. Khilaafaad oo dhulkan oo Mandheera iyo Balxaw Kenya iyo Soomaaliya noqotada dadka community Soomaaliga bada khilaafaadku waxa keena boundaries gaan oo aan ka leenahay oo Mandheera iyo waxa dad u dhaca jiraan dhuliyaasha isku soo jiraan haddana boundaries oo wadana oo macna boundaries kaliya oo jirin inta Soomaaliya jiraan Kenya ka jiraan. taasi waa problem wajid khilaafaad way keentaa. tan kale waxa la ka guuriyada nana community la dadka xoolo dhaqatada Soomaaliya diille iyo Kenya la dhacdo dadka community kamid ah dadkii xoolo dhaqatada ku guureen naxkale u guureen kon naxay maadeen qaarkood biyo raasanayeen dhulka u guur karaan qaarkood pasta dhinaca soo raasan karaan. marka waxa u maleynaa khilaafaadka badi waxa keena dadkii xoolo guuritaan waa nana dadka maadin degnaan bari meel biyo loo sheegay karaan
khilaafaad kulli waxaa keena haddana daaqa kan karaa oo dhulka laga raadsan karaa qabiila keen karaa waxaa keena markii IBC camal Mandera County camal tahay boundaries la kala oodana la yeelan karaa meelaha community limit kara meelaha dadka la dhisin karaa keen karaa hada khilaafaadku waa badan yahay dhulku waxaa la dhulku waa dhul muhiim maxaa yeelay dhul waa dhul xoolo laga heli karaa daaq laga heli karaa land bolodka noqotaada boosa noqotaada kulli waa wax muhiim oo baad lagu baxsharana waxaa keen kara dana ninay maad kara waxaa dhihi kara dhulkan halka laa jirne waa la wadan karaa kilometer camal ay maad kara la wadan karaa qabiil kale dana dhibaato ka imaan kara community kale dana waxaa dhihi kara dhulkan halka laaneen dadka maxuu digeen khilaafada waa arrin soo kala keen kara waa tahay aad baa u mahadsan tahay Gurey marka maxaa ka dhalan kara saameynta ka dhalan karta khilaafaadkaasi colaadda dhulalka maxaa ka mid ah wallahi khilaafaad badan maana ka dhashto maxaa yeelay dhul waa wax muhiim oo wax maanta adduunka Soomaali ku noolin waa oo meel degan waa dhul waa wax oo zaid muhiim oo khilaafaad keen kara waa waxa khilaafaad wax keen kara kamid ahay dhibaatadii khasaare badan ay keeni digaal ay keeni khilaafaad ay keeni laba qabiil isku dhaxay hadda kaba soo qaad Mandera mara horay dhulkan oo shabilna meelaha la dhahay saalana meelaha la khilaafaad ka dhacay warkiisa oo dad badan ku dhamaadeen Mandera waa usasata dawadi iyo garmaana community laba qabiil AEB khilaafaad ka dhacay waragteen rabo meelaan khasaare fara badan ay keentay intaas qof dhamaaday guryaal fara badan la gubi dhul waa wax oo khilaafaad zaid oo qabiilka maad kala geyn kara oo dhibaato keen kara oo dad waxa keenay qabiil isna banaana dadkii oo iska fikira dhulka dar waxa keenay siyaasadda dadka kala kicin karta burbur barakac fara badan ay keen karta xoolo fara badan meesha ku khasaar kara nafa meesha ku gali kara marka khasaartada keentay waa zaid waa badan lama koobi kara tan kale Ibrahim oo dhaway famadana waxaan ku dhihi karaa dhibaatadii oo badi oo khasaartada keen karta xoolaha la wayn karaa xoolaha baaba dhul la gubi karaa lacag khasaarada fara badan oo milyan la dhax kara marka khilaafaadkeedu waa zaid lagama bixi kara waa tahay marka sidee loo soo afjari karaa colaadaha ka dhasha khilaafaadka boosaska iyo dhulalka la isku qabsado ama baloodyada Ibrahim madana dibadda ku celin karaa khasaartada ay keen karto waan ku sheegi waa sida lagu soo afjari karo sida lagu soo afjari karo khilaafaadku kwanza waa lagu socyaa waxa la dhaha community policy oo in la suubiyo oo hay'ada amal ka mid ah oo soo maalore waxa aragnay oo khilaafaadka oo badi wax soo dhaxgalay hay'ada oo kale ka mid ah nimanka dirsoonaaga hay'ada fara badan oo ku jira way ku jireen khilaafaadka waxa lagu soo afjari karaa qabiilyaashan oo fara badan oo ku noolin oo Mandera County Soomaali noqota Itoobiya noqota Saagoos noqota waxa lagu afjari karaa kwanza in la hela fasti sharci oo dastuurka oo dhulka lagu maamul kara waxa la heli karaa boundary systemically dadkan ay kala degan yihiin haye daaq iyo biyo kala jiri kara si loo subin kara community policy-ga si loo subin kara odayaal oo kamid hay dhalinyaro ku jiraan dumarku ku jiraan haweenku ku jiraan mutacallim ku jiraan dad badan la subinaa waxa la subin karaa dana strategical oo community policy oo meelaha dhulka oo kala si loo kala xarinya si loo kala dikara ka kale khilaafaad waa ka kara dadkii Soomaalida iyo Itoobiya iyo Soomaali Kenya noqotada boundaries raba dhulkan ay ka milaawata waxa raadina sidii 1963 dhulka si loo kala jari waa dib loo laabanay boundaries ay kala jin kartaan dadka wala dedegnaan jirin dadka inta dedegnaan jirin kara waxa lagu afjari karaa haddana ina odayaashan dadka mutaxalimka inay imaadaan maabka la keen waxa la keen oo listusi oo arrintan la keen oo nimanka oo la kala heshiisay oo dadka la kala heshiisay waxa lagu afjari karaa tan kale ina oo dastuur fiican oo la suubi oo arrintan dadka ku kala dhaqan karaan tan kale waxa lagu afjari karaa dadka inay jeclaadaan oo isku imaadaan oo hal noqdaan baxayna bashara ka dhacay kara dhulku waxa way dhacbinaan fara badan ay keentaa dadkay kala geysaa dadka suma keenta haddii la joogo Mandera haddaan ku sheegay nimankii barwaaqo joogaan nimankan u dara dhow oo haddii dhulka Mandera la isku haysta aan tusaale kaa soo qaada oo ku yaala dhulka ku yaala barwaaqo maalore waa la isku gefi dhulkan hadda maxaa la dhahaa Karbaqooley
ibrahim qarbaqoole maalon ay dad baraysa bixiyeen dhulkayna la qaatinay dheen dada oodanay countigan baalka dhulkayna oo sharci iyo rabana barinay dheen dhulkayna qadan rabaan khalafaad fara badan dadka tabiish markay adan dhigacala la isku bijinay buuqa ka dhacay maxkamada isgeeyeen dhulku waxa way dhul oo land Mandera hadda ka mid tahay oo hadda boodhagan ka mid tahay waa arkaysa khalafaad fara badan ay keentay dowladda Kenya iyo Soomaaliya waa aragtay boodarkii waa la subina la dhaay naftigeed khilaaf ay keentay oo bakadii oo dadka soo gudbeen Kenya markay dhul subiyeen Soomaaliya way maadaarka baashadan waa hadda burburi salaad markuu magaca ma jireen taas milyoon meesh ku qasartay marka waxa way khalafaadka waxay dhartaa ina wadama labada wadan isku imaadaan hata sidii Ethiopia oo ku aragta dhulka Kenya dhibaato ma jiraan laakiin wabiga kale meel qaarkood oo Ethiopia iyo Soomaaliya Kenya dadnaas isku soo jira dhulkaas oo Soomaaliya oo garadii iyo booradii meelaha ay dhul isku xasan wajiraan Ethiopia khalafaadkaas way jirtaa marka khalafaadku waxa lagu xalin karaa sharci oo likeen kara dastuur likeen kara sidii loo kala degnaan kara hay'adaha inay maadaan oo community oo isku keen karaan labada qabiil isku keen karaan dawladda inay soo dhaxgalaan oo dad soo dhaxgalaan marka khalafaadka waxa dhameyn kara sidii lagu xalin lahay sidii loo fadhiisan lahay sharciga hore likeen dastuurka la suubi oo community la isku keen jeclaysi misal salaam oo yaashin isku keen hay'adi adii sala kala tagnada digaal ay keen kartaa xool ay keen kartaa dad ku dhamaan kara wala badan ay keen kartaa marka waxa ay degdeg oo lagu xalin kara lagu keen kara sidii dawladda sida geeslo isku imaadaan Mandera County rafsooda haday noqoto qabiilasha isku imaadaan oo diyaal dhaqatada isku imaadaan oo subax kala jiraan waxa yeelay daaqa isku imaad kara bashara dad dhacmar kara hadii wadanka dawladda imaado Soomaaliya Kenya bashara dad imaad kara boolaga wali dhibaato ka jir khalaaf ka jir dhiba ka jirta marka waxa badan in si lagu xalin lahay in isku imaado waa tahay dhanka kale waxaa jira dad xuquuqdooda lagu tumanayo dhulal kale marka sideen ku hubin karnaa in sharciga loo siman yahay sharcigaad ka dhawaajisay dhulalkana looga hortago xaqdarada corruptionka iyo xadgudubyada loo geysto dadka mulkiilayaasha ee dhulalka waa runtaadi naftigeega Ibrahim waxa way ninka youthkii oo Mandera County dhalinyarada youthka oo jamaya human rights activities waa ku jirnaa dhibaatada far badan waa noo yimaadi community minority la qabiil yar oo dhibaato jiraan jirta hadda korumeyga aan arkays oo Mandera ka mid tahay dada jirto dhulkooda laga qaatay oo hadda buuqa jiraan waa tahay ninka hadda minority ga hadda for example kan hadda dhulkan arkaysa Neboy waxa way dhulkooda waa la qaatay suuqalo waxa way waa lagu suubi meelo biitangi lagu suubi naftood bii ma qabaan waa tahay daaqay ka mid tahay waxa way dhul loodi biya Mandera waa ki maada Neboy sumin ninka waa qabiil minority waa dhulkooda lagu suubi waa tahay marka waa la qaato waa lagu suubi ninkii oo xelinaya way ko waa ninkii mesh degan waa ninkii dhulkooda la qaato manayna Mandera busilay ninkan abay taas waa mid tahay dhulkii maanta Mandera dhibaatada weyn ka jirto waa dhulkii oo dadka miskiima minority la arusti oo nimanka tulid ku subisana sharci ku subisana Mandera maanta di oo qaadi u tagtay dhulka isku haysto Mandera waxay tahay 1500 way ka badan tahay dhulka isku haysto oo mara oo family isku haysto qabiil isku haysto dad oo isku haysto way badan tahay hatta gadaal ku laabtay Ibrahim oo kaan hadda kaaleysadii weydiinaysa dadkii human rights activities far badan way baadeen Mandera dadka xuquuqda bilad gudooda Nairobi way ka imaadeen dad badan oo boloodiyaal ugu yaraan oo sodon laga qaatay jirta dhulka hadda oo nimankan oo dawladda mas'uuliyadda ku fadhiyaan kulli wadad oo community badal ay kaxsaday ahaan jirtay wad community nina jiro boloodu waa 700 oo weeraan dhul way ku fadhi ninka jiraanka 50 bahadra ku fadhi Mandera khalafaadka ugu weyn waa taas kan kale dadka Soomaaliya deema dhibaatada waa la sheegana dadka ugu way jiraan marka dhibaatada oo zaid way jirtaan xuquuq bini'aadamka Mandera ka ku jira ka mid tahay waa ay dadka badi bolooda la qaatay dad badan ka loo ee wali maadan dad qaarkood dad ay imaadeen marka nimanka community minority dhulkooda badi waa la haystaa waa la qaataa dad qaarkood bolooda way wareejisteen meelaha dadka u tigaan waa lagu soo bijiro bolooda dadka la jira xoog lagu qaatay kootini aadeen meel walba aadeen human rights aadeen marka dhibaatada way jirtaa dhulada dadka oo shacabka badi waa lagu fadhiyaa ka kala dali imaada booda garada guriyaasha fara badan oo lagu jiro dadka reer Mandera way xabaadaan qaarkood bakaad soo haystaan
qaarkood dastuur haystaan dhulku haystaan kan kale Mandera dhulaa la qeybi oo dhulaa lagu qeybi oo diiwaantaana oo maalora dowladda county qeybiso waa ususataa kun oo bolooda qeybinayeen bolooda kulli dadka la xooga lagu qaatay dadana si dadana la deji waa tahay marka uu dadka dad oo teetena ma jira boloodkana oo dad ku fadhiyanimada dhulkana la kala leeyahay waa tan kale waa boodarka dalooso labaad dhulka badi oo Mandera ha jireen dadkii baka shalay waastaan shalay macayir dowladda gobolada ku kaasoo waa lagu fadhiyaa oo dadka la dhibaato weyn ka jirto dhulaa oo dadkii shacabka ay leeyihiin oo nimanka dhinaca imaadeen iska degeena jiraan dhibaatadaas waa la sheegaa meel baa la sheegaa dadka xuquuq miskiimo boloodkooda maalin barwaaqoodii arkaysa oo bypass kala suginay dowladda county way ka kacayeen bolooda qaarkood dadka taajirina qaateen xuquuqaas way jirtaa oo balaadinka dara loo geystay way jirtaa dadka qaarkood hatta leega gatay way jirtaa marka dhibaatada dhulka waa waxa way bashir waa waxa lagu daaqal lagu suginay waa wax maad lagu shaqeysay marka dhibaatada Mandera county ka jirta iyo xuduudaha waxa ka jiraan waa dhibaatada boundaries-ga iyo boosasho dadka laga qaadanay dhibaato weyn oo ka tagata waa tahay dhanka kale waxaa jira dadka qaarkood ee waxbarashada dhankaasi aad bay ugu hooseeyaan oo sharcidu ma yaqaanaan marka doorka wacyigelinta iyo waxbarashada ee ka hortagada colaadahan maxay yihiin waxa way kwanza waxaa dadkii badi dhaqanka moogi sharci ma garanaayeen dhaqankan oo ka hortagan oo dhulkan boosyaasha loo tirigelinay macnaha sharci oo waa jirtaa looyaal badan hadda way jiraan ma fahmaysaa oo land policy soo aristeen urban land jirta land commission wata way keeneen dad oo human rights oo sharci waa jira dastuurku waa jira dadka ayna garanaynin marka waa tahay boundaries-kana waxa weeye hata waa jirtaa dhibaatada dhulkan ka jirta sharciga waa jirtaa dastuurka haddii la raaci lahay oo dadkii fahmi lahayeen dadkii shacabkayna waa u sheegnay dadkii badi waa la tirgelnay hay-adaha naftigooda hataa human rights hataa dadka diris wanaagga hataa badi hataa sharciga way ka hadleen sidii oo khilaafaad oo meel oo dhibaato la keeni karin oo dhibaato la keeni karin khilaafaad la keeni karin maxaa yeelay meel peace ka jira mawti waxa waa lagu xalin karaa meel doomaan ka jirin hadda Soomaali Kenya dhulkan hadda waa markaas khilaafaad la ka dhacay idan isku badasina maxaa yeelay wax ka weyn dadaas waa tahay blasharadi halaabay waxna imaaday dhaqaale suuqyada Mandera waarkaysa boodarkadii dhibaatadii daran ku dhacay oo security la xantay maaroon waan ku sheegay Ibrahim Dawal FM dhibaatadii kooban oo dhulka hadda lagu xalin karin Soomaali wali dhibaatadii Kenya Mandera waa jirta security bashadi ma jirta way ma jiraan boolay waarada tan kale wada sharci lagu hortay kara dastuur lagu hortay kara Ibrahim ku sheekara ummadayna waxana ma civic education waxa la ina la tababar oo training geli oo capacity la bar dad badan way maadeen oo dhulkana sharci waa jiraan dadka badi capacity building hay'adda way suubiya waa tahay marka dadkayna waxa la rabaa in waxay gelin lagu suubi midda waa tahay midaasi hay'adaha oo soo laaban doona aad ba u mahadsan tahay dhanka kale midda hay'adaha iyo dawladda ayaan iminka u gudagalaynaa sidee dawladda iyo weliba hay'adaha iyo bulshada ay isaga shaqayn karaan xalka colaadaha ka dhasha dhulalka ayadoo loo eegayo dawladda iyo hay'adaha marka kwanza dawladdu waa saddex dawladdiga Ibrahim oo dhaw FM Ibrahim dawladda county way jirtaa dawladdi oo national government oo security oo smaday way jiraan hay'ada way jiraan waa tahay dadkaasi waxna badan way xaliyeen kwanza waa ku maasan yahay dawladda Kenya maalana khilaafa oo ka dhacay burburka barakac keentay oo kamid ah dhulkan oo raamugu meelaan khilaafada oo qabiil isku haystaan dhulka way jiraan boundaries isku haystaan way jiraan waxna badan way xaliyeen oo isku yimaadeen hay'ada oo maalgeliyeen way jiraan oo kamid tahay هذا هذا مال برسونا جودان وفوبا جانا for peace كان نمكان كل إنت peace هذا ولا ده كل واي بعدين خلافات بدي أو مدير توا كسر تجين دي دولة دانا أو department كان أو department cohesion integration commission أو واي جيران أو عبد الرزاق كان أو نمكان أو شوي كان أو سودا واي جيران هاي ده إنت peace كان أو ده كان بدنا هاي ده كل التلاعب ويسكت الدرين ويكون تجين واحد بدو ويقتين لكن وحدي لنا إن أو أرنتان أو خلاف كانوا يماد ما فت واتا كم ويسن محيي بربر بركع وكيد كلا جو وكيد كلا ومدة سيس الأسبوع اللي هو وداي مركا وحاجر على سيستم وسيجنال جرت أو خلافات كانوا واحد كلا مركي تبع تدا على كونفليكت وكم بتاعي على سيستم كان أو
oo complete oo loo ogaan karo roob inta waxa way daruura la arki karaa waxaana daliil oo bisweer waayeen wingi marka daruurka diilarka la dareem complete inta waa la dareema ayay social media gara ka dareemi meela oo telefoonaan oo kala fadke dabadi waxa keena social media la qoray marka la fiiriyo si liista jinay ayay waa la mid tahay waxa kala fadkeena la mid tahay social media gar meelaha dareenku waa la arki karaa hay'ada iyo nimanka aad waa ka hortag karaan waa bulshadu way isla shaqayn karaan ودي لقطات أولياء لقطات أنا كنا مركا يوتكا يبقى كلنا أو نفسه بالكوكينا وأردت أنا نفسه كل وادي وكل كسرات فحيي اللي كان مركا أعمال الكسرات وكيس كلنا أنا واحد كيكرا هذا نفسه وادي أو ميلا تاني نتحكران دولتي أو درسوا نتحكران كاونتي ماذا أسد حدو ديس خمسة وجلس ديس خمسة ورغور تيكرا دبعتها وعلوه على كرا وعسوس صدته ورغور تكرا waa tahay barnaamijyadeena kale sidaan ka dhawaajinay dhalinyarada lagama qayb galiyo kulamada xalka looga helayo marka dhalinyarada sidee loogu dhigi karaa xalka colaadaha dhulka ka dhasha marka waxaan ani maxay yeelay dhalinyarada maanta waxa way 70% dhalinyarada waxa way qabiilada dagaalka markii la galay kala geliya khilaafaad markuu yimaado kala geliya waxa la foolo ma kala subiya droogada wax kulli dhalinyarada lagu isticmaalaa waxay yeelay dhalinyarada naftigooda khilaafaadkan sidii lagu xalilay meelo walba inaa laga qayb gala dhulkaan hadda la siinay dhul dhalinyarada mandara ka mid ahay boqolkii 70 dhalinyarada bolod ma qabaan sharciga Kenya waa haysta ninka kibaana markuu hel inuu dhul helo maadi Ibrahim oo daafim kibaana markay shay dastuurka Kenya arsaday ninka kibaana dawlad inuu dhul helo waa maxay yiri waddanka ka mid ahay booska waa fara badan yihiin dhalinyarada hadii dhulka la siinay meel khilaafaad lagu yeeri karaa way halin karaan inay dhageystaan maxay yeelay ay ka biraarintan halin karaa marka dhalinyaradu waxaan rabnaa boqolkii 70 dhalinyarada meel khilaafaad la keenaa boqolkii 30% ina lagu daro dhalinyarada dumarka oo khilaafaadkan ogaadaan oo waxa dastuurkan akhriyaan maxay yeelay sharci ay ka garna marka waxa dhibaato keena dhalinyaradi dagaalkii la geli meel oo khilaafaadka lagu xalin lahayn lama geli waa tahay lama ogeysi lama ogeysi laakiin hadda waxaa ku maasan yahay xaalad diris wanaag waxa way meela oo juudka target ku fiiriyaan umin target ku fiiriyaan hay'adaha diris wanaaga ka mid ah oo saddex geesoodka waa aragnay waxa badan way ku dadaaleen targetka waa fiiriyaan laakiin waxaan arkay odayaal dhaqatanka iyo dawladda county iyo national government waxa laga rabaa markay arrintan imaadaan dhalinyarada inay ay noqdaan community policy oo arrintan oo subin karaan oo qabiil walba oo 3 shaqo la geeray oo wada program musubilay oo khilaafaadka laga qayb gelinay meel wax ka dhacan inay ku jiraadaan oo arrinta naftooda dadka horsocod noqdaan oo wada tashad la geli oo programka dadka la qaban karaan maxay yeelay way minute ay ka qor karaa oo dastuurka ay ka subin karaa dawladdu way ka arki karaan dhalinyarada bixin nimanka waxa arrinta ku dhaqan karaa kuwa waa nimankii oo hay'adaha oo dana program subin karaan seminaarka dhalinyarada inaan la geli dawladda dhalinyarada ay geliyaan meel walba oo saddex geeska noqotaa tan kale Soomaaliya Kenya dhalinyarada sidii isku arinay oo arrintan oo borderka hadii oo ilaahay ama ka gara waxay dhinaca Soomaaliya Kenya dawlad ma min karaan darado meesha dadku way ku dhigeen laakiin waddan waa lama iskala marmaam kara baawda 30 sano jira waxa ina la xali oo borderka si lagu furlay dhalinyarada ina la keeno xarinta si lagu xalinayo maxay dhalinyarada waxa way boqolkii waa dadkii oo maanta oo dawladda haysan kara wadada maanta oo wadada xukum kara wadada maanta wax qaban kara markii dhaqankii awal ayaa istaaji dhalinyarada hadal ay ka talaabsadaan meel lagu yeer kara kulka booshash way barantahay hadda dhalinyarada raddi la asku dhalinyarada waxba ka baastaa dhul ma baastaa dhalinyarada boqolkii bolooda taageerin dhaqan dadku way dhaqan hadii dhalinyarada oo hadalka la geli oo bolooda la si dhul la si oo codad dadinaya dhalinyarada boqolkii dhibaato boqolkii 75 sideetan guryaha kale ku jiraan waa tahay qaarkood gurigooda degan yihiin dawlad ma qabaan dhul ma qabaan boos ma qabaan dhibaatada dagaalka ay ka galaan qalabka ay ka keenay malorada kamoorkan borderkan bandar isku jiray waa dhidada la xiri maxay yeelay dhul la isku hastay kurumaysa suwa markuu hadii leeyahay dawladda county-ga iyo hay'adaha inay ka helaan dhibaatada kulli waxa ka dhalinyarada dhulka la sii waay dhalinyarada dhibaalisi bulada loo qeybi waxay gelina loo subi meel tashada lagu dara meel dhulka jira kuloo jira hata dumar ka mid ah oo yidka ka mid tahay ay ka naftoodi arrintan inaan la geli oo dadkii oo soo noqdaan arrintan ma ku kii garaan
waa tahay su-aasha shanaad ee barnaamijkeena ayaan u gudagalaynaa dhanka dumarka ayaan aadaynaa iminka dhibaatooyin noocee ayay dumarka wajahaan kolkay timaado lahaanshaha dhulka sideyna u xallini karaan dumarka sidee u saameynaa arrimahan marka Ibrahim Daawud waxaan ku sheegi lahay oo my brother walaalkayga dhulka dhibaatada khilaafaadka keenay naga dumarka horsocodwa qabiilka marka oo deegaanka ka dhaxay naftooda horsocodayeen waa tahay dadka alaalaasay oo gurbaama tumayn oo horta kirnay wax kirnay oo dadka deegaanka horsocod noqonayeen oo nimanka keenayeen hada dhulka inay qaatay maxaa guri la joogta iyo qabiilka boos la qaatay waa social media ka hadlayo waxa la dhibaatada keenay dumarku waa dadka uma maleynayeen waa dad horsocodayeen waa tahay laakiin haddii naaga dumarka la dhaqan gelin lahay oo hay'adaha Women for Peace ka jira oo shirka lagu yeeray oo talada walba lagu yeeray oo forum loo subin lahay oo maxana dumarkii naftoodii xaq ay leeyihiin maxay yeelay bulshada ka mid yihiin waa youth women gender youth women elders culamo waxa badan jirta dadkan geesiyaasha qabiilkan dumarka wadankeena dumarku waa dadkii dad khilaafka keenay waa dadkii oo maxana meelaha oo soo noqonayeen waa dad oo taladooda yihiin oo dad oo waxalaan oo maalinkaas oo ka mid yihiin oo fitradii oo waxaala kulli isticmaala oo meela khilaafa la geliyay dumarku waa dadkii oo amaankeen kara waa marka amaani way keen karaan waa koortag way subin karaan khilaafka way damayn karaan maxaa yeelay haddii oo naftooda sidii maxaa yeelay yudka humene dadkay ku jiraan hadda Mandera haddii fiiris Mandera county ama Soomaali dhulka haddii fiiris dumar boos maba qabtaba waa tahay waxaa laga dhigay dadkii oo naag waaye iska dhaafnina guursan doonee meelaha siinin naag waaye meelaha ku darin naag waaye guri aad joogto waa tahay maanta wadan fiiri 70% dumar oo bolos qabta malaha aabeed mar inuu sii moogi marka waxaa laga rabaa waxaalaanay oo fitra keenay waaye kuwa ina shir lagu daro oo dadkii la aqoonsada jenda la aqoonsada community ku jiraan oo talo walba lagu yeer kara oo meel walba lagu yeer kara oo socod noqdaan laakiin ay dirsoona waargan oo ku dadaaleen dawladda badi way u yeeraan laakiin odayaal u yeeraan dumarka ka tagaan dhalinyarada ka tagaan hadda meel khilaaf ka dhaca odayaal dawladda iyo county ka tagay waa tahay haba dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ka tagay dumarku ama loo weesi saas jira Allah loo soo sheegaa inta loo sheegin anaga lagu darsada waa tahay marka fursad noocee ayaa u furan dumarka iyo dhalinyarada si ay ugu qayb noqdaan kuwa gudoomiye xilalka iyo go'aanada bulshada waxa way Ibrahim waruntaadi way noqon karaan haya xaq ay ku leeyihiin waa tahay ina lagu darsado oo talo walba lagu darsado way faantahay dumarkii iyo dhalinyarada youth wada Mandera County waxa way dastuurka Kenya oo 2010 baasmare waxay sheegtay youth and women 30% ay leeyihiin fursadii lama helay marka laba qof siinay malaha 30% dib ay noqotaada dhaqaale noqotaada horumar noqotaada way leeyihiin laakiin nin oo arrinta ku darsana malaha waa tahay inaan la suubi strategy la suubi plan la suubi dhalinyarada opportunity fiican ay leeyihiin haddii maanta lagu darsado talo lagu darso alba darsado waa dadka horumar gaari lahay waa tahay waxayna la subinay program la subinay kulli inay committee lagu dara daarada lagu daray haddii shan qof la subin laba dhalinyaro iyadu bana laga dhiga saddex kale dadka la kala qaybistaan waxay la talada lagu darsan lahay dhalinyarada marka bolod way heli karaan dhul way heli karaan khilaafaad boosko dhamaan karaa fikradu way dhamaan karaan youthka ugu meel dhalinyarada iyo dumarka hadii la isku dar lahay tiibto la sii lahay talo lagu darsan lahay fursad badan leeyahay horumar ay gaar lahay dhul heli lahay qalab way istaagi lahay dhibaatada way yareen leeyahay maxay yeelay waxa dan khilaafaadku waxa keenay xuquuq lahaantan dhalinyarada dumarka xuquuqooda lagu ciyaari xaqooda loo diidaya marka waa hadda Mandera County dawladda ku jirta maalin waxa la qeybay 10 kun oo block dhalinyarada youth kale laga sii malaha waa tahay odayaal dadka ka qaybsanay dad odayaal 10 block ku bari nin dawladda county ka weyn dawladda nadarkeeda oo dawladda ka mid ah nimanka waaweyn kulli bolooda dhulka weera waa yaabi dadkii miskiin bolod ma qabaan waa dhalinyarada ila oo horumaraan oo bashara u noqon karta bolodka soo garan kara horumar ku gaar kara adina badan ay keeni karaan kala badan way la gaari karaan sidee isbedelka cimiladu u saameynaya colaadahan Ibrahim waa
saameyn badan ay keen kartaan maxaa yeelay climate change-gaana saameyn fara badan ay keen kartaan maxaa yeelay hadda beeraha dhulka beera maaragta oo jiraan roobka 2 jeer u dhuftay waa tahay 4 jeer u keenay khasaaro fara badan u keenaa daadadka beeraha dhana dhammaan ay gaajay keeni climate change wuxuu keenaa barakac badan u keenaa waa tahay qabiilku isku dira dadka meel kala guura meel kala aada climate change marka lagu walaalkin kara drought-ka fara badan oo maaragta oo zaid u socda burbur barakac u keen kara biyo isku dagaalay daaqooda isku dagaalaa waa tahay yuudkii oo dhalinyaradi iyo dumarkii shaqay weynay climate change waa keena dhibaatadii hawada climate change Soomaaliya hawada isbedela waa tahay dhibaato waxaa keena burbur barakac fara badan u keena abaaraha ay ka dhalan kara oo xoolaha dhamaan kara digaalku keena qalaabu keena shaqo la'aan u keena ayay awal dadka shaqaysan jireen beeri daaq yuudka fiiri 700 beeray ka shaqaystaan shaqo la'aan ay maada xooli adana dhamaana xooli adana kala guura waa keena cudur keena gaajadu keena waa tahay dhalinyarada shaqay weynayn dumarkii shaqay weynayn بس اللي قدرنا واحد قدرنا كل داخل اختبار دفتي سوق دنا شغال وينه باشرده يا وينه waa tahay marka waxa lagu dagaalamayaa biyaha yar iyo cooska oo heray biyo yar cooska la isku dagaalayay qabiilka dana xooli kala guuray khilaafa keeni dhibaatada keeni adig climate change gadee dhibaatada dhacan waxa way bulshada dhibaato weyn ku jiraan kuminta Soomaali Kenya sida Kismaayo aan boodhagaan qalabka fara badan ay keenayeen maxay yeelay adana waxay keenayeen dhibaatada keenayeen raashinkii alaabta soo gudbeenin dhulkii xirmay jidkii xirmay shaqayal weyna gaari shaqay weyna dhaliir shaqay weyna ad qalabta lama koobi kara digaani way keenta climate change dhibaatada way keenta xoolo kala guuray drought noqotada markii ma noqotada jidkii xirmay waxay al weyna raashinka weyna badaada al weyna labada bood waa kala xirma ubiga buuxsamay lama gudbi kara marka waxa way qalabada dhaxgeyslo dhan uu keenaa climate change waa wax ugu badan oo dhibaatadii qalabka keena dhibaatada keena gaadi keena burburka keena dhalinyarada iyo youth waa dadka saameyn weyn ku helayeen marka climate change dhax waxa kamid tahay maxay yeelay dhalinyarada shaqadii ay weynayeen beer abuurkii weynayeen deeqay weynayeen gaari ay ka wad wax walba ay ka qabanay dumarkii saas waa meel ilmiya la kala guuray dada meel loo kala guura meel la kala xarara marka waxa keena ilaahay dhibaatadaas aan tusinin marka saameyn badan ama dheer ka keentay maalora beeraha dhan waa helaabeen gaajada dhaceen gabdhaha suuqa dhan shaqay waayeen badka countiga nimanka ay raashimo loor birisbirisiyan oo saliidilisi hay'ada dhan ta meela badan saxaadeen red cross ka kamid tahay weelili waxa la keenay qaar ku suuq maadayn oo ay joogaan dhibaato fara badan oo ku keenta climate change waa tahay marka qorshe nooca ay bulshada u xifdisan kartaa biyaha iyo cooska ayagoon cururin colaad oo Ibrahim oo waan ku sheegay arintan waxa way xoolaha keen karin oo qabiilka soo sameeyaan oo dadka shabaab maxay yeelay daaqi biyo dad isku yaraan nin hoolis dhamaana malaha xoolo soo wada meel oo qabiilka la degan yahay keena qalabka keeni waa tahay marka waxa way xoolaha waxa lagu yeeran karaa oo daaqan oo dadku ku yaraan inay hay'ada xoog saaraan dawladda national government oo national drought management ajir xoog saaraan county xoog saaraan hadii dhibaatada ka jira waa arkaysa Mandera county-ga kamid tahay Soomaali kamid tahay maala television ka fiirsada na daaq BNC oo BNC waxana si BNC rodoga ila lagu tuba wax walba ilaahay bixi wax walba ilaahay dadafin kara waxa dhaay waxa lagu yeeran karaa khilaafaadka lagu yeeran karaa in xoog la saar oo county-ga hay'ada dawladda kulli xoog saaraan bii dadka loo shubo bii dadka meel loo kala geey xaalada la qoda meelaha wala subi oo projectyaal la diib oo dawladda badan dawladda Ibrahim waruntaadi waxa way dawladda waxay jiraan hay'adaha wasbos jiraan wax kala mid change expertise jirta lacagaha way jiraan oo kala mid loo tirigala dhacay adduunyo walba soo dhibay way jiraan marka waxa way ummadda nafteeda waxa dhiiday wada ilaahay dhibaatada waa ka bixiya
dadka inay dhaqanku way ka tageen awal dadkii beera la abuurin jiray wargaaska la awal beera la abuurin jiray kolka Soomaali kulli beera la abuurin jiray nimanka dadku way yaraadeen waxa way waa sugayeen oo dad maartay relief ay aaminsan yihiin markuu aan dhiileena dadkii lacag la'aan ay Ibrahim oo dadkii wax ma abuurin karaan wadama saddex wadan geesna بحشر الحنا إسكجرتا خرمر الحنا إسكجرتا وذلك ما يكيني مركو وحندي ليني تسكي بيرين أبوتان وحلو بهنيا إنا أو للصعدي أو هيدا الحق ديبان أو دور درفتو الحق ديبان أو فتلايزا لسي أو واحد بيرا لسي أو مدي كوازا تخيك بيرين لبر سيدي أو قاجينا كل مالاي سيدي أو دباتنا أو بيرين بيران أو دباتنا بيران أو دباتنا كينا نفتودي أو ما نبور بركا ماركس كينا أو كلامي جيج علينا نفتودي كورتك سيلو بالله سيدي أو واحد مارس أو لوسو بالله تبقى كورتكان واحد ناصر لوسو بيقرا كور شمال لوسو بيقرا نفتكي أنا الدين من درس ومالي كينيا بودا أبوه ويبات كرات بير وواحد مهم وما تذكر مركز تقروا وعلى كل نرجع بسرشة كل والكلام ورا مركو عديد لأن أدي أو أخذ كدورة دي أو كاونتي أو نشلو جمعتين فتلايزة ديوان أبوه لسي أو فتلايزة لسي واحد والبلد أو بيرن أبو هايدا أو العكسيات أو تلك كلاخين كرات أو دول نوال أو كوبيرتو دولة دي ودلك بريستان وجعلنا خدات بريستان وعملينا صورتار كراش أتبدا وابور كرنا أتبدا صوت صارن كرنا مجحدد ولما عمين كريم ديان نبتودا فتيا بواحد ومدار وحومرينا سعادت بدر يمكن كرتا تغيير رئيس مركز نبتودا دباتنا العام كله ويكبتا لي صورتار كأدر سأليني ديران ودباتي بلد كورتب ويسو بالله مركز راشيم أو حيل قدو حيل قدو حومرينا قاجدا ديو بيجراتا ويدمان كرتا waxaan dhiileeni Ibrahim dhibaatadooda ma fadhamaanay bulshada la isku noolahay qabiil noqotaada boodha noqotaada baala noqotaada hadduu meel walba dhibaatada way ka jirtaa laakiin Soomaali Kenya Mandera kamid tahay Ethiopia kamid tahay taa dhulka sota waa isku haystaa dhulka isku haystaa inta sidoo ku dhamaanay nafa ku baxay markuu waxaan Apollo ku dhiilay nin walba oo ku noolahay haddii dhaliiriya haddii dad oo wax garadiya dhulkaan oo isku alleeynay إلى كذا أو شرعي أو دستور كأو المري أو نوال بق أو وعجل السوبي ما فهم أو دتك السكو كنا مرشد السكو حريري هيدا وعلى كقطع درسونا كان هيدا كميدا أو نمكان أو UNDP United Nations كان مكان أسود عقلان كوزان عقلان ومدي هنا دل السكو مرسي أو لدينا خلاص وحوة خلاص كنا تقال كنا بربنا كانتا dadka inay qorsad noqdaan oo qalabka yar ma dadka inuu aragna maanta Soomaaliya ka dadaalaan waxay inta isku qabsay ina dadka la fadhiisto la xali ina orantan oo sidii oo ay ka naftoodii oo waxa u sheegnay ina arrintan ay dhaxin oo dadka walba oo ka fadhiistaan aad buu u mahadsan yahay Ibrahim Axmed oo ku magacdhay Gurey Bunja barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo afmeeraynaa waad ku mahadsan tahay dhageysta la jaanqaadka nagala soco baraha bulshada Facebook X iyo YouTube ciwaankeenana waa danta dalalka dariska ilaa iyo kulanti dambe maca salaam xalqada toddobaadkan ee barnaamijka danta dalalka dariska waxaan diradda ku saari doonaa sababaha markaasi uriya khilaafaadka iyo colaadaha ka dhasha isku qabsashada dhulalka iyo boosaska waa qodob aad iyo aad xasaasi u ah barnaamijkaasi ayaanu doonaynaa inaan cagta ku saarno dhammaan arrimaha khuseeya iyo sababaha keena in bulshadu ay ku kala go'do dhulalka iyo boosaska dhegta waraarici axadani soo socota goorshagta uu kolkay soo dul istaagto labada duurnimo barnaamijkaasi ee ka dhegayso Dawa FM